soo dhawaada casharkeena 13aad ee MS Excel. Casharkeena waxaan ku baran doonaa Excel functions. Excel functions aad ay u tiro badan yihiin. Waxaan qaadan doonaa marka maanta hal function oo ka mid ah under iyo under if. Under ma arki doonaa sida loo isticmaalo, under if sidoo kale sida loo isticmaalo arki doonaa. Under waxyaalaha markaasi ay xalinayso ama conditions markaas inay xaliso loogu talagalay waxaa ka mid ah greater than. haddii aad rabtid inaad markaasi tusaalahaan nambarada midka ugu weyn camal aad hesho waa ku samayn kartaa less than sidoo kale waa ku samayn kartaa equal waa ku samayn kartaa. Okay, haddana waxaan rabnaa inaan raadino halkan waxaan ugu diyaarsan names, halkan waxaan ugu diyaarsan type, halkan speed. So now waxaan rabnaa inaan raadino halkan waxaa nagala rabaa inaan raadino a type and more than 70 speed. A type waa kana marka waxaa la rabaa a type oo haddana ka weyn ama ka badan 70 speed. So qaabkan raadinayna isla aragno markooda waxaan leenahay equal kadib function aan isticmaalayno maxaa waaye under waaye. Under ayaad qoraysaa marka then markuu sidaan kugu soo baxo laba mar kala kliksinaysaa kadib logical 1 iyo logical 2 ayuu markaas ku shaqeeyaa under. Logical 1 ka marka kan uu noqon doonaa markaan type ka aan doorno waxaa leedahay equal waxaad furaysaa quotation mark kadib waxaad qori doontaa aadi raadi lagu dhahay quotation mark soo xir comma dheh then waxaad dooranaysaa speedka kadib waxaad dhahaysaa speedka hadduu ka weyn yahay 70 then waa soo xiri kartaa ama waa soo dhaafi kartaa kadib enter leedahay. So now hadda mid kasta oo 70 ka weyn wuxuu dhihi doonaa true, mid kasta oo 70 ka yarna wuxuu dhihi doonaa false ayuu dhihi doonaa. So asla fiirina marka laba mar kala kliksinaya ama waan jiidaya saa ujeedid kan waa b asaga iska dhaaf waa false, b waa false iska dhaaf markasta b markasta false ayuu ahaan doonaa. laakiin a markaa imaatid 65 hadduu ka yaryahay maxaa la dhihi doonaa false, oo sorry 70 hadduu ka yaryahay maxaa la dhihi doonaa false, laakiin 70 hadduu ka weyn yahay maxaa la dhihi doonaa true. waa kana 70 uu ka weyn yahay true. marka sidaas aad u isticmaali kartaa wax kasta oo markaasi aad u baahan tahayna waa ku isticmaali kartaa under functionkan oo qaab xisaab noocaan ah. Okay, now waxaan u baahanahay haddii aan rabno inaan u bedelno ka waran yes iyo no oo aan ula jeedno waa type a oo 70 ka weyn yes, type a oo 70 ka yar no. waxaan sameynaynaa marka if tan ayaa marka soo gelaysa. if tan sameyno marka waxaa leedahay if aa qoraysaa marka koowaad if marka soo qabso laba mar then now if aan usoo ziyaaday kadib waxaan sameyn doonaa halkan aan tegaynaa then waxaan leenahay comma marka dhaadid kadib waxaa qori doontaa quotation mark waxaa qori doontaa yes, quotation mark soo xir comma dheh haddana quotation mark qor kadib no dheh kadib quotation mark soo xir then bracket soo xir kadib enter dheh. Now saa ujeedid mid kastaba wuxuu sameyn doonaa yes iyo no oo b waa no, b kasta waa no ilaa halkan b nooma dooran. waxaan raadinayna muxuu ahaa waxaa waaye waa a oo haddana ka badan 70. So now a oo 70 ka badan waxaa la dhihi doonaa yes. You see a 70 ka badan yes, a 70 ka badan yes, inta kale no way. haddii aan bedelno tusaalahaan eedan oo markaas 70 ka yar 65 haddii aan u bedelo 78 oo 70 aan ka weyneeyo ama 71 waxaa la dhihi doonaa yes ayaa la dhihi doonaa. soo jeedid yes ayaa marka halka maanta waxaan baranay sida loo isticmaalo under iyo under if. casharada xiga waxaan ku qaadan doonaa Excel functions oo noocyo kala bedelan ah. haddaan ugu cusubtaan ugu soo bir. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.